wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland oo bulshada la wadaagta xogta iyo macluumaadka maalinlaha ah ayaa maanta shaacisay kiisas cusub oo ku saabsan xanuunka coronavirus kuwaasi oo noqonaya kiisaskii ugu dambeeyay agaasimaha waaxda xiriirka dadweynaha ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Xuseen Maxamed Yuusuf oo ku sugan magaalada Budco ayaa warbaahinta u faahfaahiyay kiisaskani cusub ee kala duwan ee diiwaan gelisay wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland maanta wali maalintii may dhamaan sida darteed waxaan sheegaynaa 48 saacadood ee u dambeeyay xaaladda cudurku waxay ahayd haddii aan ku bilaabo waxa weeye tirada dadka guud ahaan cudurka laga baaray waxa weeye 56 qof cudurka inta laga helayna waa 6 qof tirada cusub ee cudurka ka bogsatay waxa weeye 2 tirada dhimashada muddo imika ilaa 7 cisho wax dhimasho amaynaan arag ilaa mahadi marka dhimashadu waa sidii hore 28 qof baa cudurkani intuu jiray oo dhan u dhimatay waxa jira goobaha wadanka laga soo galo ee xuduudada ah dadka laga eegay xumadda screeninka waxa la yiraahdo loogu sameeyay tiradooda guud ahaan waxa weeye 3523 lambarkan lala soo hadlo ee ah 988 waxa la soo hadashay 12401 qof ayaa la soo hadlay dadka cudurka laga helay 5 waxa weeye reer Soomaaliland qofna waa ajnabi 5 waa reer Hargeysa midna waa Berbera dadka da'doodu gabi ahaanba waa 40 ilaa 49 oo ah 4 qof iyo 80 ilaa 89 qof oo da'doodu qaday tahay oo ah 2 qof guud ahaan xaalkii cudurku maanta waa sida ilaahay mahadiya ka gaadhay waxaad moodaa tiradu inay intan dambe soo yaraanayso hase aatee tirada dadka laga eegay cudurka laga baadhayna ma badna taasina laba waji bay noqon kartaa oo wax weeye dad aad u xanuunsanaya u soo baahanaya in la baadho oo iyagu la soo hadlaya ayaa ama tiradoodaasi ay yaraatay Cabdiraxmaan Abdullaahi Xasan telefishinka caalamiga ee Sum News magaalada Budco.